alla naxariistii jannaha ka waraabiye marxuum Mukhtaar Maxamuud Ceelaabe waxaa laga soo saaray meydkiisa dhaambiyood ku yaala tuulo u dhow magaalada Burco kadib waxaa la keenay cisbitaalka weyn sida eheladiisu sheegeen si baaritaan loogu sameeyo meydkaasi waxaana ay ku rideen talaajada meydka qaboojisa balse nasiib darro waxay sheegeen ehelada marxuumkaasi in ay u yimaadeen 2 casho kadib oo ahayd waqtigii lala ballamay oo ku beegnayd sabtidii la soo dhaafay meydkii oo qurmay isla markaana ku qarxay talaagada agteeda oo laga soo saaray ehelada marxuumka oo ka yimid deegaanka Gabiley ee gobolkaasi Gabiley waxay ka tirsadeen cadaalad darro maamulka cisbitaalka Guud ee Burco oo ay ku eedeeyeen in ay meydkooda qurmiyeen isla markaana uga saareen talaagada meyd kale oo cusub waxay ka codsadeen laamaha cadaaladda in sharciga la hor keeno dadkii sameeyay falkani ويان ظاهر أنا جواه اللي يراها ظاهر قانيل Guud أبتينك أدير كيبان هاي مرحوم كان تأدير كيبان هاي حالا نوصو شيء مرحوم كاسي إنه بالله اللقاي دبده تنا وانو سو قرماني وانو كان من قبيل بانو كان من دود بيدي هايدون قبيل بانو كان من لقى حرس إنك لا يالها حرس هو سير كم مسويد هنجري سيرجو هنجري لكن صالح بالله نقول يلي دبده تنا لا يولهم بهيوب كمسؤولها بالله قاسي يعني دان واحد دان بالله يلا واحد بالله اللي قلت الماما وخطرتي سولية وهو بالله جيب كل كي نكى طبالي قانون بكون عيب اللي كروي وحلو يرى إنما قوسينا يا بربر الله يرى الهين وصو صار إنك ومصمم طبيب درس الله وكسوق هذا أنا ويسوق حيين قيب تنقول يدي نكان العاصمايو نكان العاصمايو والله باريا لما هدي الباريو نتلاجة لكن يسان وقرمن ويهانو شذي خميس تبا الله سوق هذا اللي لقى شيء تلاجتي وانو لقى له وانو أركن جمعينا وحلي عرض المصعونية تلاجة بكجرية خرجنا وانو بحنا كل ما بقول بانو بحنا صدح بقول كل كي شلي أن لنو شيء السجو تلاجة القصص صار قرمي أنا رجينا ليه بقول بانو بحنا تبدل القصص صار تبدل القصص صار هذا كل كي سيدا تاي أنا وحنو أرجني عدالة ضرو سمع أركسا و رجل لبني بانو تمن لبني تمني إياه نبر سأل الله أرج ما القصص صار يالس وافجي ويا فرحان زين داني إنك هادير كمان هاي سيدا ونك هذيك صور رمي وحنا هاي هليدي وحنا نكون من قبل كقبلي نك بالله بكون عايل نقولي وانو نمني والله قصص صاري تليه قيب تاسوق هي وحيد بارس بان سمين يا هلا قاضو هلا جي cisbitaalka talaajada la gurido waa la soo qaaday talaajada la guriday lacagtii talaajada bixiya la guri waanu bixinay talaajadii sidii kulkii la guriday maanta waa jimce iyo rabadaane sabtida aynu aataleeyay anagu sidii ayaan sugaynay sabtidii baanu nimidnay waxaanu nimidnay meydkii oo laga soo saaray talaajada oo dibadda la soo saaray oo qurmay oo kala go'ay marka halka waxaanu ka tirsanayna sharci daraan cadaalad daraan meydka meyd kale lagu bedelay anagu lacagta waanu bixinay 900 oo laana la naga qaaday hanti kale oo lagu lahayn ma jirin meesha cadaalad darra ka jirta cisbitaalka magacaygu Cabdisalaam Axmed Cusmaan waxaan ahay marxuumka abtigii waxaan ka mid ahaa dadkii gurmadkii u soo horeeyay mideen geerida ama sameedka taliye qaybkii iyo dadkii ku shaqalaha waxaan mareenaa baaritaan wax la ilaa sida ugeed waxa talaajada lagu riday talaajadii baan ku riday waan karinay talaajadii lacagtii baan bixinay rabadaan baa soo gashay markaa jibcii waxa maanta war rabadaan iyo jibcaa isku beeray isku soo baxayo iska jiray talaajada sabtidun baan arrinkaasi baaritaanka dhameystirnaa sabtidii waxaan ugu dhacday aan soo kacnay ninkii oo meydkii laga soo saaray talaagadii oo dibadda la dhigay oo nin kale lagu riday isla markaana qarxay oo gabigiisii badhii ka socdo waxa markaa hay'adaha ku shaqalay ama gobolka joogan ama Soomaaliland in arrinkaasi cadaaladda loo waafajiyo dibna loo eego si toosan loo baaro waxaan ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland inay ninkaasi cisbitaalka haystee waxaa nagu sameeyay astaantayadii lumiya cadaaladda loo mariyo dhanka kale maamulka cisbitaalka oo aanu la xidhiidhnay ayaa ka gaabsaday inay ka jawaabaan eedaha loo soo jeedinayo
balse arrintani waa markii ugu horreysay ee Burco ka dhacdo in laba meyd la isku bedelo waxayna argagax ku abuurtay bulshada gobolka Togdheer. Xabiib Ciga Xasan, telefishinka Ariel, magaalada Burco.